bani aadamkuna abuurkiisa ilaahay markuu ka waramayay laba shay buu qofka bani aadamku ka kooban yahay. shay waxa weeyaan waa jasadka, waa jirka weeyaan. shayna waxa weeyaan waa ruuxda. mid waa la arkayaa, midna lama arko, laakiin waxaa la rumaysan yahay oo qof walba ka dhaadhacsan jirkan waxaa qiimaha u yeelaya inay tahay ruuxda. ruuxdana maaragtaane cid aragtay ma jirto oo horumar kastoo bani aadamku ay sheegtaan waxaan u maleynayaa ruuxda weli wax sifaysay oo tilmaamtay inaysan jirin. ma wax dheerba, ma wax gaabanba, ma wax cadba, ma wax madowba, ma wax qurux badanba, ma wax foolxunba. cid tidhi cilmigaasaan hello waan gaadhno waan tilmaami karnaa ma maqasheen? yaa waa arday sheegay ninkaa dhulka horumarka lagu sheegay joogay annagu afrikaan ka imane dee ma jiraan, ma jirto. ilaahay baa yidhi wayasaluunaka can iruux, ruuxday ku weydiinayaan. qul iruuxu min amri rabbi, waxaad u sheegtaa ruuxdu waa amar ilaahay weeyaan. wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila, laynima siinin oqoonta ilaa in yarunbaa layniga siiyey baa lagu yidhi. nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii reer bani israa'iil ay ku yidhaahdeen ayaa dadka ugu oqoon badan, anaa ugu oqoon badan buu yidhi. ficlan meesha markaa nebi muuse uu joogay iyo dadka uu dhex joogay isagaa ugu oqoon badnaa. laanna markaa uu hadlaayo nebi muuse wuxuu ka hadlayay waa cilma shariica. idan ilaahay casa wajal hadalkaas ilaahay baa ku qabto oo yidhi waa lagaa cilmi badan yahay. addoommahayaga ka mid oon annagu cilmi xaggayaga aan ka siinay ayaa jiray orodo isaga u tago raac baa lagu yidhi. marka u yimid khidar calayhi salaam wixii ay kala baranayeen ay kala barteen ayaa wuxuu tusay maaragtaanay shimbir badda intuu afka geliyey ka soo qaadaya. marka khidar baa nebi muuse ku yidhi shimbirka maad u jeedaa? haa. afka inuu badda geliyo, afkiisii dheeraa inuu biyaha geliyo soo maad arkaysad? haa. intuu soo qaaday inteesa ka hadha bal sheeg. badda dhan ee intaa leeg adduunka oo dhan taale biyaha intaa leega yaalla. khidar ayaa wuxuu ku yidhi muusow adiga iyo aniga cilmiga layna siiyey marka loo eego cilmiga ilaahay agtiisa yaalla waxa uu ka dhigan yahu la mid yahay sida shimbirka afka badda geliyey biyaha yar ee afkiisa soo raacu ka soo qaaday. waa cilmiga innaka iyo khalqiga la siiyey weeyaan. cilmiga ilaahay agtiisa yaallana waa baddaasuu la mid yahay baa lagu yidhi. marka ilaahay baa le wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila, cilmi laynima siinin ilaa haddii layna siiye baa ilaahay yidhi wax yar baa layna siiye, wax yar. bani aadamku horumar kastoo ay gaadhaan ruuxda ma sheegi karaan, ma sifayn karaan, ma macnayn karaan. hadduu dhintana waa naka qofka meydka u wada murugoonayna, ayakuna way baroortaanoo dhulkayba isla dhacaan. dadka muslimiinta maanta qaar ku dayda kuwa gaalada iyakuna dhaforada iska garaacaa jira, laakiin waa laga murugoodaa. haddii labada qoloba la yidhahda maxaad la ooyeysaan? qofkii bini aadankii waa kan hortiisna yaallo, lugna kama gu'in, gacno kama gu'in, ilna kama soo dhicin, dhegna kama gu'in. qofka bini aadankii waa kan dhammayska tiran leh. maxaad la ooyeysaan haddii la yidhahdana dhammaan waxaan wada leenahay shaygii qiimaha badnaa ee qiimaha qofka bini aadanka u yeelayay ayaa qofka ka baxay baa la leeyahay. shaygaasi waa ruuxda, oo ruuxda ayaa arkay, cidna ma arkin. oo haddana seed ku ogaatay ruuxdu inay qiimo jirka u yeelaysay oo ruux meesha ay ka baxday? dhammaan waxay ku leeyihiin qalbiga bini aadanka ayaa xaqiiqada soo taabtoo garanaya shayga meesha ka baxay inuu yahay shaygii qiimaha lahaa. amaa jirka bini aadanka maadaama caro laga sameeyey oo aabbaheen aadam calayhi salaam turaab baa laga sameeyey, bini aadanka intiisa kalena biyaha yaree manida ee ragga ka imanaya ayaa laga abuuro. waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa alam nakhluqkum min maa'in mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiin ilaa qadarin macluum faqadarnaa fa nicma alqaadiruun waylun yowmaidin lilmukadibiin baa ilaahay yidhi. war miyaanan iniga samaynin biyo yar oo liito oo maaragtaane taag yar, biyaha yaroo daciifka ee qofka ay ka yimaadaan
ama galmood ha kaga yimaadaan ama hawaawiba ha kaga yimaadaane waxaa waajib ku noqonaysa inuu biyaha uu ka maydho waliba qofku janaabada marka uu ka maydhanayo arkaan bay culimmada islaamku u sameeyeenoo marka hore qofku waa inuu niyooda inuu janaabo ka maydhanayo marka dambana biyaha jidhkiisoo dhan waa inuu gaadhsiiyaa hadduunan niyoonin inuu janaabo ka maydhanayo bay culimmadu leeyihiin bad hadduu galo janaabadii weli kama hadhin baa lagu leeyahay waa inaad niyoota inaad janaabo ka maydhanaysid biyaha yaree qofka haddii ka yimaadaan waajib uu ku noqonayo inuu maydho ayaa qofka dhan ee bini aadanka laga abuuray waa kii nabigeenu lahaa calayhi salaatu wasalaam 40 ka horena biyahaasi waa nudfa ayakoo maarataana qandhuuf aad moodo ayaa riximka dhex yaallay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam 40 ka dambena buu nabigu yidhi dhaxana waa xinjir yar oo dhiiga oo riximka ka lulata calaqa 40 ka saddexaadna buu nabigu yidhi waa waslad yar oo hiliba saddexdaa marxalo marka abuurka bini aadanku caloosha hooyo uu ku maro ayaa ilaahay u soo diraa malag dadna malagu markaasoo ruuxda ku afuufaya cilmigaas 1400 oo sano ka hor 1445 sano ka hor ayuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilligii dadku ay geela raacayeen ee awrta isticmaalayeen ee dameeraha la adeegsanayay ee basharku ay ahaayeen dad reer miya loo badnaa ayuu xadiidka nabigeenu ka warramayaa qaabka bini aadanka raximka loogu abuuro halka dadka cabdaanka yurubiyankuna ay maanta leeyihiin qaabka bini aadanka raximka loogu abuuro waxaan ogaanay bay yidhahdeen dhowr iyo 9kii وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل حاتر هذا الحمد لله ما هد أردن إلهي عز وجل أيه أهاتي سيريكم آياته وفعل مضارع بعلماء ولادانه مستقبل بلغها الله إيمك كان آيات إلهي والله تسندونا انت أجرتين جري دونتانا آيات إلهي واد أركد دونتان بلغوا يلو علمك لين بري وحو إني وضب وحو إني جيني دونا حديث النبي جيني قرآن كأمبوتك دونا يمر عفايو فتعرفونها إنه حقي حين وادقران دونتان بإلهي يلي وما ربك بغافل عما تعملون وحا آد سمين إسانة أدوك دوشة أدكو سمين إسانة إلهي مدك غافلة حموديني إلهي وأني أركا يا وأنا إني مغليا وحنا لقى أبو رجلك بن آدنك وبيها ير بيها الرقونا وحي كيمادان وعناد وفيتامي cunaduna caraday ka timaadaa marka bini aadanku waxa jirkiisa quudiyana waa cuntada dhulka ka soo baxaysa weeyaan taasa marka qofka bini aadanka jirkiisa uu ku nool yahay cunada qofka haduu joojiyo jirkiisu marka wuxuu noqonayaa jir daciif oo taageer haduu qofku taageer adana maqalkiisa wuxuu noqonayaa gabaabsi aragiisa gabaabsi buu noqonayaa socodkiisa uu soo gaabanayaa hadalkiisa uu soo gaabanayaa dadna qofka uu taageeraynaya marka absa la leeyahay warninkan daraya hayso nafaqa la'aanba sida uu gashay niga neef loo qalaba la leeyahay waa la buuleynaya markiiba waa jirka taasi marka cuntadiisu waa taa dhulka ka soo baxda طيب ruuxdu xagee ka timid marka xagee ka timid ya xagee ilaahay maxay cuntaa marka iyadu xagee ilaahay wixii nooga yimid iyo ruuxdu cuntaayo ogaada xagee ilaahay maxaa ka yimiday quraanka ka yimid xadiidka nabi maxamed baa ka yimid calayhi salaatu wasalaam labada haday ruuxda bini aadanku ay weydo ruuxdu marka waxay noqonaysaa wax daciif oo taageer dana wax xanuunadan marka bini aadanka maanta hay'ad leedin stress baa haya hebel xanuunkaasi barigoor dadka gaalada lagu yaqaan imika qaar baad ku sheegteen meelaha joogana mid baan maalin xaafad ku buuqano uu jooga hadalkiisa waan maqlaynay meesha uu naga qaawiso uu naga furi waayay kii la socday baa stress bahaya naga bari buuri stress muxuu yahay aan wallahi yaabayba xanuun muslimka ku dhacaa muslimka kuma dhici jiray xanuunkan laakiin systemka dadkan ay ku nool yihiin markaad gasho bilaa cibaado aad noqoto ee salaada tukani weydo ee quraanka akhrisan weydo ee ilaahay ku abuurtay aad dhab u aamini weydo gacmaha kor u qaadi weydo ilaahay aad adeeci weydo da xanuunka iyaga ku dhacay marka adigana uu kugu dhacayo ogow musawwamatan 'inda rabbika وما هي من الظالمين ببعيد با إلهي يلي قوم لوط عذابك وكو قبت إلهي مركو كور من نوعية عذابك أها أيال العقوبة سر ربك حقي سيكا قتمدي وما هي من الظالمين ببعيد كو الظالمين تيسيدو ضي لنا با إلهي يلي عذابك سيكو كفق معها هدو قفكو السيستم قال هدو قالوا السيركل قوغا هدو مرو وهلكي هايستان هاد قوغا هدو مرو حنوك يكنا كل عيدنا وكو دعيه
marka waxa keenaya qofka muslimka inuu walwali walbahaarkiisu bato waa marka ay ruuxdu ay cunadeedii ay weydo weeyaan ruuxdu waxay waayaysaa cunadeedii غذاء الروح لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكيلها جرك بني آدم كحبن باكو جرتبو النبي الحبن هذا هجاكتو جرك ودن با هجاجي هذا حماتبو النبي جرك ودن با حماتا سنة وقلبي جابو النبي قلبي نبي علمد ليهين وماشى قدام بيصير روح ذا مركب بني آدم كأي كبح يسوق ملك وقبتها بالليل ماشى قدام بيصير الروح ذا يكون صو ورتبه للوا وضنها هل كاسا مركب ملك وقبنا يا مركب قدام بيصير أي كبح يسا مركب واقف بني آدم صاو صيعب ورأرجي بتجي بتلا الصومالي أرجع سوق أرجع قدام بقوله أرجع سسوع عليا ساسو يا جماعة halka inakuna aan jirkan kafankiisii iyo nacashkiisii iyo qabriga lagu riday aan u diyaar garoobayno ayaa ilaahay malaa'ig buu soo diray haddii ruuxdaasi naar haday ehelkeeda ahayd oo adduunka dusheeda fujuur iyo dambi badan ay ka shaqaysayna malaa'ikatul cadaab baa u keenaysa kafan wal iyadu billah hada ilaahay naga badbaadiyo haday ruuxdaasi ay ruux wanaagsan oo adduunka dusheeda ilaahay ku taqaanayna malaa'ikatul rahma ayaa markaa soo qaadaysa kafan ay jannada ka keenay baa lagu qaadayaa dadna markaas la galbinaya kor loo qaadaya inagoo marka maydkii kafankii ku duuduubnay oo nacashkii ku sii qaado qabuuraha u sii wadna ayaa la soo celin buu nabigu calayhi salaatu wasalaam nafta wanaagsanna ciliyiin baa laga soo diiwaan gelin nafta xunna buu nabigu yidhi sijiin baa magaceega lagu soo qoraya inna kitaaba al-abraari la fi ciliyiin wa inna kitaaba al-fujjaari la fi sijiin labadaa diiwaan baa markaa lagu soo qoraya magaceega hadday wanaagsaneen ciliyiin baa laga soo diiwaan gelin oo dadkii wanaagsanaayay is yaqaaneen iyada ka horeeyay ayay samaawaadka dhan ku sii mari doontaa markaas loo bishaareen la oran doonaa marba hadaad halkan soo martay waad liibaantay baa la oran doonaa inagu dadka dhulkan u soo baxay baa la moodaa inay liibaaneen mid la hadlaa inankiisi ma gashay hawaan galay alxamdulillah mar hadaad gashay markuu talyaaniga kaamka markuu ku jiray waan galay oo waa la naqaabilay walaa yadri warbunan u haynin halka qofka imanaya maaha qof ilaahay jecel yahay qof duca qaba wadanka dhulkan ma yimaado qof duca qaba oo labada waalid u duceeyeen oo ilaahay khayr la doonay dhulkan ma yimaado ogaada sidaas oo kale ayaa qofka muuminka ruuxdiisu arwaaxdii ka horeysay wanaagsaneed oo dhamay samaawaadka ku maraysa markaas la leeyahay halkan hadaad marba soo martay waad liibaantay markaas uu leeyahay hebel baa hortay soo dhintay ma aragteen markaas ay leeyihiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markay hadalka yiraahdaan uu naxaya marka ruuxdu way naxaysaa oo maxaa dhacay oo muka soo horeeyay hebel mar hadaan anagu arkin halkan uu nagu salaamin xaqi kala loo qaaday baa la oranayaa wal iyadu billah ruuxdii baa markaa malaa'igtu ay soo celin haday naf wanaagsan ahayd waa ka nabigu yiri waxay leedahay qaddimuuni horay ii geeya waxa sunna meydkii in la degdega buu nabigu la degdega markaad meydkii aad sidaan haday nafta la sida naf wanaagsan oo soobanaya ahaydna khayr ka horeeyay baad hor u gaarsiinaysaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam haday naftu ay naf xun ahaydna raqabadiinaad ka dhaadhicinaysaa sharkeeda buu rasuulku yiri هذا النفط أي نفح ناحيد وحي لهذا يا ويلها أين تذهبون بها تنوي خسارته هل كيف تكون قدام بلا وي خسارته هل كيف تكون قدام هذا الكاي الروح ذا سلاد هيب النبي يقولي مخلوق ودن با مقلايا على الكيغا عبشديدا بلن بالكيغا مخلوق ودن با مقلايا لما قولون با لغا قريب النبي يقول لما قشينين ولا بدي واجني انسغا هذه اللبدا لما قشين لها أرجع على سبب عاصمة إلهي وكان غريب لذلك ولا ليال روح ذا أيا قيمة لا جركم ما هو حق قيمة لا جرك بين هذا كم حك بوح أربع حين بوح ده هو حالك كبوح حك بوح حك بوح سحرة لا سحدة قف كدافتنا وبكون هذا يسكت أكتر وبكون ده دافتنا واقع كل علوش هاي سعوته نفقدي بقى بحضوا وانتي فما كعك رئيس ودعي ودوي السيء بقولن
هذا يستكتر وحكوا لي علوشي با يتاغنوا constipation بانه wax caloosha dhaqaajiyaan u baahanay iga bini aadankaas ka waran haduu ilaahay garan waayo sidaas خلق الإنسان ضعيفا إلهي باري ضعيف بيها لغا أبورنا وبيهاس waxa calooshaada ku jirana waa waxaas marka dimatina waa dirxi maaha marka jirkan waxa qiimaha leh jirkan wuxuu qiimo ku yeelanayaa waa marka qofka bini aadamku ruuxda dhisa weeyaan dadka zamankan maanta adduunyada jooga intooda badan jirkay dhiseen wuxuu jirku u baahnaa bay dhiseen wadooyin bay u hagaajiyeen dhakhtarro fiican bay u sameeyeen gaadiid fiican bay u sameeyeen technology bay ula soo baxeen cunno jaban bay soo saareen meel walba cunay dhigeen meel walba muwaasalaad bay u dhigeen maca zaalika ruuxdii way ingegsantahay moogtahay dadkii bini aadamka way raaxaysan laayihiin hadalka dhamma yahay ordhamma yahay inigu waad aragteen niga sheekayn maayo naag cadaan oo Faransiiska u dhalato kuwa dadku aad ay u dhageystaan ama bari dhawato social media-ga waxay soo dhigtay lacag waan helay tiri aqaladii adduunka ugu fiicnaayo ugu quruxda badnaa iyo meelihii ugu wanaagsanaana waan ka dhisanay laakiin usrad is haysato isku duuban aqaladii kuma haynay tiri may ku hayaan kuma hayaan alaabtii ugu tayada fiicneed alaab aqalada la dhigtana waan dhiganay tiri walaakiin raaxadii qalbiga kuma haynay tiri daawooyinka adduunyada ugu tayada fiicnaana waan la soo baxnay dhakhtaradii adduunyada ugu fiicnaana waan samaysanay aqoontii ugu fiicneed cilmi sayniskana waan la soo baxnay caafimaadna ma haynay tiri jahiim naarta jahiima la yiraahdo adduunka dusheeda nagu haysatay tiri dadkuna daahirkay naga eegaya nolosha dusha gudahana dab baa naga socda bay tiri waa nagu gaalada wax sidaan ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إلى حيري وفك بن آدم كحدو إلهي أبو رجران وايو آخر وصعدنا حدو جران وايو واجباتك إلى حي أصارنا وكجستو أدون كدوش هذا وحوليا ولش يسوى عريري أقوم بلا يلعق حدو هيستو عريري بكجري عريري إلهي بقول بلن قادتانا وجودي إلهي بقول جودي أدون كدوش هذا عريري بكجرا آخر مركو تجنا وحو تجا يسقى إندلا مركز ولا يا رب إندلا أنت تقول صار تواب حيوان النقبة مركز اللقون عندنا أدون كدوش هذا أنت جوكتي إلهي آيات كسيو على عدبة كوي مدي واتكجستي ما أنت أنا كون الرحمة دي وكالة جسني باللون دونا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون بإلهي ولا تكونوا هنقولين بإلهي كوي نفتو ذا إلو بنفت المامان هدف يدوك الله كان لقالها به المامان وحي مصلحة دودو كجرتين ولا قرم ريبا إلهي بركة قف إلهي وقرتو وحا مصلحة ديسو أي كجرت بإلهي سكنا قرسية فبغل إسان قرشد إلهي وحا كحرا مصلحة دادي بأمركا إلهي كجرسين أدقنا haddii ilaahay ku abuuray ujeedadu ku abuurtay hadafku kaalaha aad garan weydo oo wada kale iska marto waxay maslaxadaada adduunka noloshaada adduunyada maslaxada u aha adigana waa lagu garbarin ugu ila goolka ilaahay ba ka taliyay asbaabta adduunyada raaxada ilaahay ma galin ilaahay raaxada qofka muslimka wuxuu galiyay waa iimaan iyo amalka saalixa ibn Abbas Allah raali ka noqday ba oran jiray inna lil hasanati nuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق حسنات قفك مركو خير سمايو قفك مسلم كان مركو خير كالسمايو صلاة إلى ليو وقرآن كأخرستو ودينتي صبرتو ودينتي سكو عمل فلو ومالك استوجو إلهي كقعب صودو وإلهي الرالي قليو شن نعمدات بقفك إلهي الدوك الدوشي دا قصي وجيس افتين باكب حبو يري قلبي جيس النور با إلهي دقاء jirkiisa quwad baa ilaahay geliya arsaaqada ilaahay waa u waasiciya khalqigana ilaahay qulubtooda maxabba ilaahay u geliya khayr hadad noqoto qof khayr badan oo nafci badan oo ihsaan badan oo ad ilaahay raali gelinaya mar walba oo meel kastoo joogo ilaahay ka baqayo ilaahay ka cabsanay hadad noqotid shanta nicmadood gudoon wajigaaga iftiin baa ka bixi dadka waad ka duwanaan qalbigaaga nuur baa kugu jira nuurkaas waa maxay waa nuurka lagu arko adduun iyo aakhira farqiga u dhaxeeya lacagta iyo salaada farqiga u dhaxeeya
إلهي مخلوق فرقك أقول حيا نور كاس اللي أركع نور كالله نسينا كنا هذا قف النور كالهين ما جرك صلاة قيمة هيلا ده اللي قد دونه تكن واحد دونه وكشقين لأن قلبي جيب مدوب هذا خلاص كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قلبي جوجا واحد ضبولي بقى إلى هيري وحي أفر لباتك ساعة يكون حجران قلبي جوجا ضبولي يا بقى إلى هيري أفر لباتك ساعة مالنتي ما أنت خير كشقين سابدا مسألة شر كشقين ما أنت إلهي حسين سابدا مسألة قبيلك هذا الحساب بدن ما أنت ذكر السماين حساب بدن مسألة الدويد هذا الحساب بدن ما أنت آخرة حصوص الطبع بدن مسألة الدويد كشقين حساب بدن ما أنت إلهي رالي قلين حساب بدن مسألة المخلوق رالي قلين حساب بدن بل حساب ما دقو مسلم هو حساب تمام فراغ إلهي كسيي هتضيعن عافماتك هتضيعن نبت قليل هذا هيسته هتضيعن حوق هذا هيسته هتضيعن ونعمة إلهي كسيو وكاتك دون تمالنا ديرين انت هذا هيستد بالربا نعمة إن إلهي يقول دوات نور كاسا مركا قفو كواركا وحن وحلال وحن وحرام بالتكسيلا يقول لي مركب كمركو سوجوك سدوش تركو قال هذا مركب كلا سعوتان كسوق قادنايو كرتومات خمري ستان شيخ خمري ما عبنا حرام بابولي انا ما عبنا ديد العقد اسمه حرام بابولي مركز اقول خمري كرتون خمري سوق قادها وغادي او صارت ها لكن هذا ما عبيش ما انه ما عبايو العقد ما كان قادنيا هذا العقد سو حلال ما انه سغان قاداي بقول خمري سما حي كلها تاي ادي بان كودو انا waxay la tahay buuli sagi baa la hada xaraan inay tahay waan u malay buuli u garanaya Soomaalidu diinta dhagahay ka wada taqaanaayo waa saamiciin weeyaan dhagaheenu diin baa ka buuxdo ma sha Allah aad baan culimada ula soconaa waan dhageysanaa laakiin waxa xaraanta ka qabanaya cilmiga maaha cilmigu xalaashi xaraanta ku kala sheega laakiin waxa xaraanta ka joojiyo waa iimaanka gaariga frame ka qabta haduu bila frame noqdo ka warama awal ba uu jeedi waxa ku yiri frame kaagi ba sii daayay afartan maalmood raaco frame ka lagu soo hor adkeeyay mid kala iibid حاد كشغلة تكسيل عن هيبودي حاد قرطة وحول بوان قرابودي لما تسعى تكسيل سهران هيبودي سال عونو سمايو لما شلنا وسكوك قبل الله هيبودي شيخ محمد سمايا حاد قرطة وقول وحان دافع مجري ولا دار تكون شيء لما نوان قاضي لما دبر صوت وان قاضي بلا يكل وان قاضي تقاور وان قاضي تخبر ولا توان قاضي يعني ما شيء كروحك هلا وعد هذا مسلم باتهاي مسلم ما دام مسلم باتهاي adiga ayaa ilaahay kugu talagalay xalaal iyo xaraan inaad garatid baa laga rabaa oo ka dheeraato xalaasha wixii ilaahay ku xalaaleeyay ciida ka badanna inaad ka shaqeysatid baa laga rabaa arsaaqada shaqo badan oo qabato ma beeriso arsaaqadu waa intii Allah qadaray weeyaan habeenka ilmaha yar ruuxda lagu afuufayay ayaa malaga ilaahay ku yiri ayaa malagu ilaahay buu weydiiyaa ilmaha caloosha galay man labba ma dhidig habeenkaas la qoraa wuxuu noqonayaa buu rasuulku yiri ma ahla naar ba mise ahla jannah habeenka ba la qoraa famar rizqu intu adwiyada jooga arsaaqadu culina habeenkaas la qoraa meesha qabrigiisu noqonaya xilligu dhimana habeenkaas la qoraa buu rasuulku yiri arka waxaan ku yiri waxaan waa la qoray hasdaalin dalka timiday arsaaqadu inta Allah ku qadaray ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل آخر رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب جبريل بأي مدبو نبي عليه الصلاة والسلام وإي وحيوده وحي يقول نفنا مرد من يسو إلا أرزاق ديد أيضا ما استرتم ويام ألا ورهويا هويا ابو نبي يقول فاتقوا الله إلهي كيابا وأجملوا في الطلب قابك الرزق أدر هذه الإنسان أرحي ابو نبي عليه الصلاة والسلام وبمعنى أرزاق دا مال حلال كرادي ابو نبي ليهي حلاشنا ويعدهي حارامتنا ويعدهي وبينهما أمور مشتبهات حلاش أي حارامت دحدودنا الرما بدن وحاجر لبدا اللهم لينا عيو وحاد قادتا مركا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما نبي يقولي وحي كشك قلي كتك وحنا شككا قلنا حلاش عب أتك نبي محمد كليه ألا فاتقوا الله أبو نبي والله كبقى والأرزاق قد أودبي نيجا دعدي يعني نجو حمبار إن الحلال كرة حلال
إلى حاران كرات ستان إلهي أرزاق قد بركة لأكتي ستة لبو نبي محمد لي حي طاعد مويانا معصية لكم قرب رسولك يقول لعق هل هذا حاران كشقيسو لكن وحاد أوقاتا لعقتا أولو الباتكسي قادي أولو عمركاagii bay baabi'in awlaadaadii bay baabi'in reerkaagii bay baabi'in caafimaadkaagii bay baabi'in ama xalaashu qofka bini aadamka jirkiisa way dhistaa nin culimada islaamka kamida boqolka cimrigiisu kor buu u dhaafay baa leeyahay boqolku kor u dhaafay cimrigiisu laakiin 20 jir baad moodaa markuu socdo marka uu kacayo marka uu hadlaayo markuu kitaabka akhrisanayo markaas lagu yiri sheekh maxaad cuntay واديك جوابي لين نوشك محاد عنتي وعود حفظت الله في صغري فحفظ الله في كبري يران تيدي بان إلهي إلهي بمعنى أمرك إلهي بان دل يرني ماذا يدي إلهي بولانه مركان دل يردها مبو بن وحول با باب قوة فاهم سما وحول با هاي يران تيدي بان إلهي أنا ضعي بولون حلال حرام اسكي إلهي بول حرام يا منكر يا فحشاء دا ديدين إلهي با وين ديدين إلهي با جركيغي خوغيغي إلى اليمين يحفظ الله يحفظك ابو نبي والإلهي أمرك إلالي أديك إلهي با كو إلالي احفظ الله تجده تجاهك با نبي قولي والإلهي أمرك إلالي هل اللي هل كادوك عد إلهي با هلي دونتا بمعنى ومحي غرغارك إلهي با هلي دونتا دعاء دا إلهي أقبل دونا أرزاقنا إلهي كو بركين دونا ريركاغا إلهي كو توسين دونا حلاشو وبدكنا السامين بكو يلتا حاراتنا علمها السامين بكو يلتا يوغو من بقرة وملوكتي صومرتي دولة دي كدسنيد ماركتانا هندية مسلم كاحيد أيا بريقا قال يا مسلم بالله دقال لما يي بقر كي وآدو مروبيسا با سوغل قصرقي بقر تويدا قريقي سيبو سوغل مركا هويقي سي بقرة دي با كنتر مانتا وحبا محاجر وادقا عريسانه ها وان عريسان هايبور إنن كاقي عرض يعني عيدا وديبي عيدا كيسي والله قوليستو والله سوج جبيي وصوص عدا يسوق والله سوج جبيي مركا بيتر هذا الكاس صح ما بيتر وركا عيدا كو كنتي كل قبيتر هذا الكاس صح ما هي ما هو ور لو كلسوني هو سوغان ما هي لابا تضبع شكدب وسوق لبقركا قصلايا maxaad maanta na haysaa war bay ku tir wadiga faraxsane warkii maalintii waran ku sheeg waxba kama jiraan buu yahay inankeen uu guuleystay buu ciidankiisa baa guushir raacday qaaladina uu ka adkaaday xoolo badan iyo qaniimo iyo dahab iyo khalqi manaafic badan uu soo wadaayo maanta uu dalka ku soo beegay uu soo galaya buu ku yiri markaas ay ku tir warka dambe sheegtay waa sax bay ku tir wuxuu bal soo fariiso adiga baa lagu jiraay xad warkayga aad markii hore wadiga maxaad ogtahay wuu bal sheeg waxay tir inankayga curad maalintu calooshayda galay luqmad xaaraan afkayga waan ka ilaaliyay tir luqmad xaaraana afkayga waan ka ilaaliyay maalintan dhalay ee dhiigii dhalmada aan ka maydhayna naas ma nuujin ilaa waxa naaska nuujinayay anoo weyse qabo waan weyse qaadanayay tiri ilmaha tarbiyadiisii halka aan ka soo bilaabay ee yaraantiisii sida aan u soo barbaariyay inuu gaala iyo cadow ka soo baxsada waa waxaan dhici kareen bay ku tiri reer badan baan maqalay dhulka markay maadeen way burbureen de maxay u burburi waayeen been baa la wada sheegay dhul nabadaad ka timiday balaaya dalkii ku sheegtay waata balaayadu weli ka socoto waxaad afkaaga ka tiraadid he agtaada ka egba tiraa Soomaalidu balaayo way jirtay laakiin ma buurnayn waata balaayadii degila ilaa imika Soomaalida Djibouti way nagu darsameen oo kuwa reer Djibouti aan meel ugu tagay waxay warnay Djibouti qaxooti looma ogoleen sida laynii qaabilay ninka markaas uu kan anu waxaan sheegtay buu mid madow uu hayo baydhabo sheegtay buu baydhabo kan yara ka hoo raxweyn baa sheegtay midna uu casaaw dheeray u dhaweynay wuxuu yiri anigu reex markaa sheegtay cadcadka farbeen maxaad u sheegay arsaaqada Ilaahay baa bixiyay والله ويدي نبينا عليه الصلاة والسلام مؤمنكم بخيل من نقول كرا ويدعي كرتاب النبي مؤمنكم فلان من نقول كرا يوم مفلو يوم كرا ويدعي كرتاب النبي ها لا مؤمنكم بين مشاكل كرا ما مؤمنكم بين مشاكل كرا ورسولكم بين يا مؤمن يا إيمان اسمه قلام حير ربنا نوبر برانول كمرك الله صو يعي لأن السيستم كابل كان أكو صو قال أما أكو جوجنو أيا أنت سبدا صحيحين
لأن الرياريه وضد غلط كم مرة يودن ما أنت الرياريه وبربر سيلعقوا هلان بيدادين هذا قلنا أقل ميل قوني إسكا قادو أنا أوبتون هل كان هندقينا صاحبان نحن هذا هو أسلان ديسي وحق دولة سيلعقوا قادة وحي قران تهي المكستوي دشوا حي لنا صاحب يقدر لي reer kaagi markaad habeenka sawaraba ugu dhugdhugsata ka waran xad isla qarin maad xoogsatid oo iska shaqaysatid oo ciyaalkaaga xoogaaga siisid xalaashu ilmahana saameyn bay ku yeelataa ugu xaaraantuna ilmaha saameyn bay ku yeelataa kullu jismin nabata fil harami fan naru awla bihi jir kasto xaaraan ku korabu nabigu alayhi salatu wasalaam naarta uu xaq loo cuni doonta rasuulku yiri marka qofku haduu iimaan iyo alla ka cabsi uu leeyahay xaraanta uu ka joogsan beenta uu ka joogsan meesha xun uu ka joogsan ficilka xun uu ka joogsan maxaa joojinayo ka joojinaya laana xiriirka ilaahay uu leeyahay ba ka joojinaya sidii ninkii Jurayj ar-Raahib nin raahib ayuu haayo reer Bani Israa'iila kaligii buu banaanka u baxo halka ilaahay ku caabudayay hooyadii baa u timid isagoo salaad sunnah ku jira markaa bay ku tiri wariya Jurayj markaasuu salaadii buu iska dheeraystay wuxuu yiri war hooya kula hadlaysay buu laakiin salaadaad ku jirtaayo salaada ka fadli badan salaadaada iska wado waa sunna salaada uu ku jiro sunna marka tukanayso waalidku haduu ku yeedho waa laga baxaya sunnaha oo waajibka la ajiibaya limaada laana baaqa waalidka in la ajiibo waa waajib salaada faradka mooyaane sunna hadaad ku jirto waalidka u xaq la in la ajiibo loo adeego markaasuu iska dheeraystay sunnihii way noqotay hadana maalin dambe ku soo noqotay sunnihii uu ku jira way la hadashay salaadii buu iska dheeraystay sii watay way habaarto waxay ku tiri ilaahu ilmaha higa dilin adoo naga xurxun ka hor naga xurxun ku fidnayo mooyaane reer Banu Israa'iil baa cibaadadiisa ka sheekaystay wanagaas waa in ilaahay yaqaano waa in caabido waa in taqwalo caynkaaso naag qurux badnayd oo naagaha jirkooga gada ka mid ahayd baa tiri haddaan anigu ninka ku dhaqaaqo wadaadka cibaadadiisii waxa uu khayr ku jiro dhan waa ka kala daadin markaas kuma dhacday iyo wadarkii doonta ilaahu nagu salidna mi dhahada sawmi adi boordu sheedu degan yahay kaliya halkii baa ugu timaaday habaarkii hooyaa ku dhacay habaar waalid baa leeyahay hoostaada ka eeg hadaad waalidkaaga caaqad ku noqoto ilmahaagu caaq buu kugu noqon hadaad waalidkaaga baari aad u noqoto ilmahaagana ilaahay baa baari kaaga dhigiyo ugu nibaan hadeer la hadloon keedin oo kaalayo wuxuu yiri waalidkay hooyaan hayaabulo aniga walaalahayba hooyo maalinba mid baa hayo maanta waa maalintaydii buu markaas aan ku dhahay hay halka ducadaada waa haystay hay baan ku yiri dhulkan jooga oo waalidkiisa waaye la haysa soo raxmad ma ya dadka dhulkan aad ugu timaadeen waa ninka arko labada waalid markay gaboobaan iyo ka guriyaha gagabooba isgeeya iyo ka isgeeyaba laana waxay og yihiin cid ka naxaysa inaynan jirin waxay og yihiin ayakuba kuwii dhalay baa iyakuna halka isgeeyo ay u nixi waayeen kama tadinu tudanabu nabigu rasaad adigu aad ilaahay iyo sharcigiisa aad ula dhaqanto ba adigana lagu la dhaqmiyo ugu hadaad labadaada waalid baari u noqotona ilmahaagu baari bay ku noqonayaan hadaad labadaada waalid aad madaxa u taagtana kuwa dashaadayna madaxa ku taagayaan ugu lidalika habaarkii hooya ku dhacay ninkaas naagtii markay dhinac walba ka marto wax dareena ninkani kuma bajiraba oo ilaahay ku xidhan markuu qofku ilaahay ka baqaayo oo qalbigiisu ilaahay ku xidhan yahay waxa agtiisa yaala maba qiimeeyaba maba eegaba waxaas ilaana meesha u muuqata ka weyn waxa soo dhan janna u muuqata dadna markaasay kolkay ka rajabaashay mid adhay la jooga u tagtay kiiba markaa ka zinisto ku dhacay ilma caloosheedii galay wiil buu noqdo way dhashay iyadoo ilmihii wadatay magaalada soo gashay baa leeyahay markaas war balaayadii waa tan ilmo wadatay ayaa ka dhalay waxay tiri Jurayj baa iga dhalay tiri Jurayj wadaadka halka maaragtaan Soomaalida ka dhistay ayaa iga dhalay tiri magaaladii guuraysa timid aqalkii baa laga dudumiyay isagii baa dhulka lala dhacay hal mar kaliya dadka soo eegay buu ku yiri war maxaa dhaco la ii dilaya bal ii sheeg maxaa sameeyay waxa sameeyay moogid naagtan adu kama sinaysan ma ba aragba waaba kan ilmihii iyadina ila timid waa kan ilmahaagii bay ku leedahay markaasuu yiri iyadii baa soo taagan oo kule waa sognahay wadaado dadku inama ogeey
ilmahaagina waa kan bay leedahay bal maxaad oran lahayd arrinkaas hadduu adiga kugu dhici lahaa ilaahay nooma keeno waa fidnad halisa soo ma laakiin ninkan cilaaqa maca allah ilaahay buu xidhiidh fiican la lahaayo imtixaanka waalidka habaarkiisi baa la tusinaya inuu ciyaarahayn laakiin xidhiidhkii ilaahay uu la lahaaya adkaaya fiicnaa ayuu dhibka kaga bixi doonaa markaasuu ku yidhi waryaada ilmaha halkaa iska dhiga haye may daynaysaan ilaahay hambarya buu ku yidhi dacuunii usalli ii kaadiyaan tukaday buu ku yidhi salaadu waa alla bari inagu salaada faradka un baan iska ridnaaye mu'minku dhib kasta oo la soo darista xalkeeda waa salaada weeyaan haddaad cabsooto 2 rakaca la tukadaa haddaad bukoto 2 rakaca la tukadaa haddaad islaantaadii ilmahaaga fahmi weydo salaad baa loo tukadaa haddii roob aad u baahato salaad baa la tukadaa hadday nolosha kugu adkaato salaad baa la tukadaa haddii dembiga kugu bato salaad tawba baa la tukadaa oo ilaahay baa la yidhaha ilaahu albaabka raxmadaada iga fur haddaad cidhiidhi dareento ilaahay baa la baryaa ninkani markaa wuxuu yaqaanay meesha koonka oo dhan laga maamulo xidhiidh fiican la lahaa tacaraf ila allaahi fi rakhaa yacrifuka fi shidda buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam war markaad barwaaqada ku jirto ilaahay garo maalintay dhibaata kugu dhacdo adna ilaahay kuu soo gurman doonaaye innaku goorma ilaahay usoo noqonaa marka layna qabto markuu bukoodo markuu gaboobo markay irid walba ka soo xidhanto ayuu masjidka soo galay madaxa qabsan isoo duceey noloshaan fahmi ilaahay isoo ducee war markaad dhalinyarada tahay baa la rabaa ilaahay inaad raalli geliso markaad caafimaadka haysa ilaahay raalli geli markaad arsaaqada haysata ilaahay raalli geli markaad nabadgelyada ku sugantahay ilaahay raalli geli markaad barwaaqada ku dhex jirto ilaahay raalli geli oo ilaahay ka cabso maalintay dhibaata adigana kula soo dari doonaa gacantu cirka u taaga yaa rabbi xidhiidh fiican baa labadeena inaga dhexeeya laakiin waan gafo hooyadii baan ka gafee ilaahu maanta dhibkaada iga saari kara iga saar buu yidhi salaaddii markuu ka baxay buu ilmi yaraa u tegey calooshuu ka muday halkaa kii yaraabaa u hadlay yaa ku dhalay bal sheeg buu ka yidhi aabbahay odayga halkaa aadhiga ku jira ay dhalay buu yidhi waa ilmo shalay iibka dhashay xilliga hadalka ma aha ilmahan wuxuu hadlaayo waa xilliga ubadku aynan hadlinba ee naaska nuugaan ayaa ilaahay ka dhawaajiyey weliba hadal nin weyn buu ku hadlo wuxuu yidhi aabbahay ninkan maaha hee aabbahay waa ninka halka adhiga ku jira halkaa degan weeyaan buu yidhi ka hadla ii geeyo jurayj markaasa dadkii dhundhunkadeen aqalkay ka dudumiyeen bay ku yidhahdeen dahab ma kaaga dhisnaa lacag ma kaaga dhisnaa weli ilaahay baa tahee oo karaamadaadii waataa noo daahirtee markaasu may sidiisii un iigu celiyo iska socday buu ku yidhi dhoobadu ahaa un iigu celiya buu halkiinaas fasax baan iska tinay daaya buu yidhi marka waalidku ciyaar maaha waalidku haddii waalidkaaga aad maaragtaani ay ku eegaan waa dulduule adduunkan iyo aakhire ogow awlaadeennana xaq bay ku leenahay xaqna way nagu leeyihiin ilmaha xaqa uu kugu leeyahay mataqaanaa u horeeya ilaahay bar oo nebigiisa bar calayhi salaatu wasalaam oo aakhiradiisa bar oo diintiisa bar oo meeshuu ka yimid meeshuu u socdo iyo ujeeddada adduunyada laga lahaa bar waa waajib taas inaad barto waid qaala luqmaanu liibnihi wa huwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik billaahi ina shirka la dulmun cadiim luqmaan alxakiim waa ninka qur-aanka loogu magac daray suuraddana qur-aanka ku taalla suuratu luqmaan waxyaabaha ilaahay ninka uu ku qiimeeyey waxaa ka mid a baa layidhi nin wanaagsan oo xikmad badan labuu ahaa markaasuu ilmihiisa waaninayaa waanida ilmihiisa uu siinayey ayaa qur-aanka lagu sheegay wuxuu yidhi yaa bunaya inankaygiyow ilaahay ha u shariig yeelin buu ku yidhi ilaahay cibaadadiisa u badhaxtir hayrkii ha caabudin hayrkii ha baryin hayrkii ha tala saaran hayrkii ha rajayn hayrkii taladaada ha u dhiiban ha kugu filaada ilaahay shirkigu waa dulmi la galo dulmiga ugu weyn weeyaan yaa bunaya aqimi الsalaa waamur bilmacruuf soomahayn wanha can ilmunkar wasbir calaa maa asaabaka ina dalika la min casmi اlumuur waa dardaaranka isagu uu siiyey weeyaan ilmihiisa salaada tuko oo wanaagga dadka u sheeg oo dadka xumaha ka reeb oo labadaa dambe
dhib baa kaa soo gaari doonta ummadda markaad khayrka aad la dhex socoto markaad wanaagga dadka aad farayso eed munkarkana ka reebaysid dhib baa kaa soo gaari doonta bini aadankee dhibta kaa soo gaadhana u adkaysa buukeen u adkayso oo u sabir waliba taa dambe kuu sheegaayo umuurta waa weyne ilaahay loogu dhowaado ayay ka mid tahay buu ku yidhi dardaaranka waalidku waa kaas inaku maanta ubadkeenna maxaan uga tegaynaa maxaan barnays gaajaad kala soo oroday nabadgelyo la'aan baad kala soo oroday walaakiin hal labadaa dhibaato dadkeenna ubadka kala soo oroday waa labadaa dhib baan sheeganaa labadaa dhib meeshaan joognayna waxay dadku yidhahdaan nabad ma taallo oo dowlad kama jirto haye shaqana ma taallo dee dadku maxay cunayaan labadaa dhibaataa sheeganay sow maaha imise dhibaataan cagaha la soo galla bali sheega عمر بن عبد العزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين بوها مالين تو دمنايي انما دي سواحد دويها بيراتي وما تجين ايكو فقرايا او حتى عاوه هدو دنت waxay ku casheen aqalkooga aynan oolin ayuu dhintay baa la yiri marka dardaara sakaraadkii baa lagu yiri ciyaalkaagii waxba ugama tagin baa lagu yiri say ku dhacdo boqora halka boqorada adiga ka horeeyay ay qusuur iyo beero iyo warshado iyo dahab iyo khazaain ay uga tageen wuxuu wariyaaday dhageysta anu waxaan hayay ummadana hayay ummadana wixii waanu ilaaliyay amma ubadkayga ilaahay rasuulkiisa baray buu maxaan baray war maxaan baray allah wa rasuuluhu baan baray diin baan baray akhlaaq wanaagsan baan baray sida ilaahay loo raali geliyo ayaan baray haday saalixiin ay noqdaana fallahu yatawalla as-saalihiina dadka wanaagsan ee suuban umuurahooga ilaahay baa tawalliye buu yiri oo ilaahay baa tawallin doona umuurtooda hadday faasiqiin iyo fajara ay noqdaanna dhaqaale ay intay ku caasiyaan ilaahay anigana laygu cadaab uga tagi maayo salaamo buu ku yidhi boqoradii isaga ka horreeyay ilmaadeerada ay wada ahaayeen ubadkoogii way wada waasheen nolosha ka wada dhaceen fuqaraa bay noqdeen waxaa la arkay iyagoo dhulka dawarsanaya halka cumar bin cabdulcasiisna dhashiisii mid taajir noqda mid in tujaar bay noqotay milyoneera inna madax baa laga wada dhigo ummadda u wada hogaamiyeen markii dambe maxaad maanta inaku aan ubadkeenna uga tegaynaa intiinani hor fadhida ee wax duubanaysa waxaa tihiin intii dalka ku soo barbaartay ee labada waalid ee muslimiintu ay soo barbaariyeen ee masaajidda lagu soo hanqariyey ee culammada aqaladooda intoo loogu yeedho loogu duceeyey culammada looga ducaynayay baa tihiine kuwa halkan ku dhasha iyo kuway si dhali doonaan say noqon doonaan bal hasweydiinne waa nicmad awlaad oo qiyaamaha la isweydiin doono ogaada maxaan uga tegaynaa ubadkeenna أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون نبي الله يعقوب عليه السلام markii adashu ay ku soo xaadirtay ay wiilashiisa hareeraha ka joogsadeen markaasuu yiri aabo wiilashaydiyo aniga dabaday maxaad caabudaysaan bal ii sheega buu ku yiri 40 sanadood 50 sanadood buu ubadkiisa dhex joogay ilaahay aakhiradu baraayay diintii aabayaashood buu baraayay ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq markaasay yiraahdeen nacbudu ilaahaka aabo waxaad nagu ogaanaysaa oon caabudaynaa ilaahaaga adiga ilaahaaga aan caabudaynaa annagu ilaah kale ma aaminsanin ilaahaasoo kee awalibana ilaaha aabaa'ika aabayaasha ibraahim ismaaciil isxaaq ibraahim ismaaciil iyo isxaaq ilaahaasina waa mid keliya wa naxnu lahu muslimuun annaguna kaa keliya umbaan u hogaansanahay nagu ogo bay ku yidhaahdeen hadalkaa markay yidhaahdeen uu dhagihiisa uu ku maqlay ayuu naftu ka baxday baa la yidhi حال ما أنت إنك أبدك إنه وتجنا ولا ليال بدوين باكوس ودح دعني سيدنا إنكو نكوبت بهذه الحين أبدكنا كوبت بهذه الحين سانسان تدي نجمع مقطع ضدكنا قربها جوجو دبال بد باكوس ودح دعي دبالنا ما كان ما يسلده هذا حاجة مركا وغرقومي dad baa ku soo dhex dhacnay badda
ilmahaaga aad ku soo qaadatay afka aad ku soo qaadatay halka aad keentay ilmaha waliba inuu noqdo lagama yaabo ilmaha halkan arkay inuu noqdo ha ka sugin Afrika inuu ku noqdo ha ka sugin ilmu ku dhali doona ilmihiisu dhali doona jiilal badan baa soo bixi doona oo oran doona fatherkayga wuxuu ahaan jiray Soomaaliya wadan la yiraahdo ka yimid Djibouti buu ka yimid meel la yiraahdo Iraq buu ka yimid Suuriya buu ka yimid sidaan inakuna ku badbaadi lahayn dhashayna iyo dhashoodana aan ku badbaadin lahayn saasaanteedina naga muuqato kiina inigu shaqo fiican waan u fiirsado waa ninka baska wada weeyaan kiina inigu cibaado fiicanna waa ninka hadduu dadaalo 2 sanaadood jamaca la tukada 3 sanaadoodna keligii meelaha ku tukada sidaan ma ku badbaadayna baan la tahay may waxaan nigu imanay anagu oo ni soo booqanay niguna baraarujinayna war sidaan aad u socotaan ku badbaadi maysaan nin baa arkay sodohdii oo maradu ay ka baylahan tahay uu ku wareegay markaas uu sodohay fadhi kale uga noqon buu ku yiri war walaalahayo anaguna waxaan leenahay qaabkan hadda aad qurbaha ku joogtaan wallahi qaabka inaguna diintiina ku sugnaan lahaydeen ummadna aad ku badbaadin lahaydeen ma intaan wadankan dhex socday dhowrkan wadan ee Scandinavia-ka ayaan habeen baan meel maqaayada ayaa fadhiisanay dadkii halkaas aan u fadhiisanay ugu soo booqdaan waa ziyaarna wallahi hadallah marka mid baa sheekh noo ducee mid baa ninka noo ducee kule waa labada dhan xiran oo tagsila wadanka markuu soo galay macallin quraan buu haabuli baadana waa kaabuli waka sidoo weeyay waad arkaysaa wada sheekh Xuseen awlaankiisa iyo boosbooskiisa tagsila ka waran muxuu ka shaqeyn wax waliba qaata weeyaan abeesa haduu arko qaadan xama dhaafay la lacag buu ka fikirayaa horta dadku iskuma wada jirtaan oo in fiican waa leedihiin laakiin dhalinyarada maanta intay u badan yihiin hatta waxaan arkay kuwo Helsinki baa ku arkay lacagta habeenka oo dhan ay shaqeeyaan marka dambana qamaar u ku ciyaaraan ilaa sixun bay ku soo gashay Soomaha sixun bay ku bixi meel xaraan ay ka soo gashay ha ka yaabin miskiin lacagta ku bixiyo xaraan bay ku noqon lacagta meel fiican qofka ka soo gasha meel fiican bay ku baxdaa lacagta meel xun ka soo gashana meel xun bay ku baxdaa ya ayuha alladheena aamanu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ba ilahi ya ayuha alladheena aamanu ku ilahi nabiga rumeeyayo kulu waxaad cuntaan min at-tayyibati xalaasha cuna ba ilahi waxa la inii xalaaleeyay cuna wa'malu salihan amalka wanaagsan ka shaqeeya xalaasha iyo amalka wanaagsan baa la isku xidhay sababtu waa maxay shaqada xalaasha qofka ka shaqeeya cibaadada ilaahay ma seegto reerkiisu kama xumaadaan reerkiisu kama burburo meel fiican baa ilaahay wixiisa u dhigaa qofka xaaraanta ka shaqeeyana waxaad ogaadaa wixiisaasi meesha ay ka soo galeen meel lamid oo ku bixiyay ugu sidaan marka aan u socono wala saan ku badbaadayna ma saa ku badbaadayna waxa weeyaan waa inaan diinteena macaan ilaahayna siiyay aan ka shaqeyno waa inaan ka shaqeynaa diintaas qaaradana timaadeen diin baa looga baahan yahay shaqo loogama baahno wadanada lacag lagama sameyn karo lacagna lagama saari karo waxaad ku noolaatood cuntood ku naaxdo waad heli laakiin aad wadankii lacag aad aqal kaga dhisataa ha sugin aad heshid kuuliga Sacuudiga jooga iniga baraka badan oo aqal ka dhistay wadanka iyo Qatar iyo Imaaraadka kuwa jooga Soomaaliya kuwaas aad arkaysaa hebel oo Imaaraadka jooga aqal ka dhistay hebel oo maaragtaan Jidda jooga aqal ka dhistay intaas aan wadanka joognay ma arkin war mid Belgium jooga ama Holland jooga ama jooga maaragtaan Paris ayaa aqalka Djibouti ka soo dhistay kuma arkin anu ma adri inuu kuna dhisateen de kala xamaray ma la ka dhistay Hargeysa ana meesha jooga ka hadlay waqti xalaasha ayaa wax wanaagsan laga qabsadaa marka dhulkan diin baa looga baahan yahay adduunyo loogama baahno in diin ku camirtaan bay ahayd in diin inaka u socno nimanna bay ahayd ummadan aad u timaadeen ayaa u baahan gurmad in loo gurmado la badbaadiyay inakii baa u haysan iyagu inay naga mas'uul yihiin in iyagu ay mas'uul ka yihiin inaad adigu mas'uulaad ka tahay halkan ku kala saari mayna banka qiyaamaha isla tagi doonaa ogaada wa innahu la dhikrun laka
ولقومك وسوف تسألون با إلهي يدي قرآن كان دين تن إسلام كبا نبي محمد لقويد عليه الصلاة والسلام أذيك الشرف بي دين تن كوتهي أمة دادنا شرف بي أتهي قيامنا ولني ويدين دونا با إلهي يدي عمر الفاروق رضي الله عنه أيا مركو قدس وأسعدوا مسجد مفاتيح دي وسوق هذا ومسجد كفرنا أيا طريقة ومريي نر راهبة ومركا الراهب وحويان ومد نصرانية أو ضدك كسر نحبه عابدة وهلك عبادة وصوبا بحي أيا لقول الراهبة ما توجد كان أدقنت أميركي مؤمنين عمر بصومر دونه مركا وكسر بحي قلت كي سيبا لي أغلق كجري ولقي كبصوب بحي نقلك هل كان بو إلهي كو حسام صوم iyo salaad iyo maxay waa diirihi lagu horeeyay mar alle markuu Umar ninka sida uu eegay ayuu Umar isaysan kar waa uu Umar ibn Khattab baa wuxuu arkay tacabka iyo daalka iyo rafaadka iyo xiriiriga iyo murugta ninka ka muuqata buu arkay harigiisi la fihi baa isku dhagay nafaqa la'aan waxa uu sida ugu tabcayna waa cibaado weeyaan waa cibaadaysanaysaa buu isleeyahay إلهي بعد دواني سابو إسليه عمر بن الخطاب أويي مركز الله يقول يا أمير المؤمنين نكن هذا أويي سوى النصراني ويان ماها مسلم والنصراني مركز عمر يلوان قرتي لكن وأنا حرسنا يا أبو كوي وحان حسوس آية القرآن كقول الله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية بإلهي عاملة وحاجرة النف عبادة أصابا بحذي وعبادة كدا ليس لكن هدو ترى النار كل عدوته وايو دين إسلام كمان هدي أدوك تمدي مت كسو أدوك جوجو دين والبشيكتا دين تا أو شيغني وحبك مجران وقادا تنو بصح تا إلى هاي قيامها ضدك وكل حساب تمي دونو كجنة لسينا جنة لقصني دونو ومسلم وقوم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي النبي عليه الصلاة والسلام هدو النبي موسى ونولان لها أنا جمع هنا وضد إذا مويانه وضد كلام صور عام ورسولك يدي والنبي موسى عليه السلام فولا ليال دين تنا إسلام كإلهي أمضى وطلق علينا عالم لقارسيون حارس أمضى عنهم مقرنا بركة وضدنا ذا نمني إياكي مركا نفكري ويني أنو دبقني ويني إياكي ما مركا إنك ما تنا الساميون نبدله والمجتمع مسلم كقارد روسو قد بي نورت أمريكية أستراليا قد بي ما يكا سامي وح مس يكا لا سامي يا وارما ما ينكا لين بدل بس ينكا وح بدل إنكا لين بدل ما أنت محل لقو بدل واي محل لقو بدل واي هذا في قاضي صعود هذا في صحة ما هنقولي بعض صعودها هذا وقف هنقولي وصعد ولا بدل مركبة ولا جاود بدية لكن هذا رسالة حنبار ستهاي ومبدأ قاعدون كأدجار سينيسد هذا سامين ضد كهذه قالوا سامين ما يو مصعب ونبي قدري مكو كدري مدينة المنور ونبي مصعب بن عمير قدري مصعب بن عمير أيضا مقالة مدينة عن إسلام وغهرين دور نين أو أنصار ونبي مكة كلهم مبايعات كلية أيا كهر رئيس بس ويسود ويان بير بيدحد الجيان هل كاسو كالبرين ويان هل كابودات كدين تكبرا نبي محمد ومدينة أنا سوقارين مصعب بن عمير أقل بودين تيوقلي مقالة مدينة إلى أي مدينة نبي قلنا كسر دويين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جيت بأمر مطاع جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي ري مدينة وحي نبي قصدا وقبا بحين أي نبي قصر دوينيين نكا كان ومصعب بن عمير مصعب أو كالجي يو نبي قدره مقري وسفيرك وجوه الرئيس إسلام ودرتبع ليدي مقالة مدينة أبو صاحب بدل النكاس كلمة مبدأ أبو حنبار سنة رسالة بو مدة جالسين يي مرجع رسالة الحنبار ستة هاي على ضدك بدل يوسامين يي هذيك اللي بدل ما يو ولا ليال أنكو وحني صوب وغنى نيجو إيمان وحويان نية دال كانت كنت ما دينه هره مسح سنين ورنية دا بدله ونية وضع كان أدو جوكتان واحد كدكتان من نية الدعوة إن الوضع كان دين إلهي أتكشى قيسان ودعوة أدو بحضان والمسلمين تقوي دان وقال لنا أخلاق وناسن أتستان قلنا هانتي دات كان وافكر مربع يرفكره وحانجل ور إلهي بابا قدري دات كان دبعتها أنك نقول عدين نوك كنتي
هذا إياك كل إلى هيدا إنه إيمان لهايين سنو قابل لهاي إنكو أن جوجنو هذا دال كان دتك كونوا لا يجوج لهايين أو دال كأني كسو قح لهايين مسؤول وين هيدا Somalia bersega. Ya, وين السويدي صوما؟ إنك بس بحين وين ما متعدد بحين لاي. إنني أبتجي بس بحين واي. أبتجي هو يلا شيء. أيوة بحين واي أبتجي ما كون بحين واي. أبتجي ولا أبتجي. هيدين أبتجي على وكوك كسي ريبل بعطيه بودي. وين عادي؟ وصومرني. had ma cadaan oo kuugu soo qaxad bixin lahayd marka waxaad ogaataa dadkani maalinka qiyaamaha xaq bay u leeyihiin inay yiraahdaan yaa rabbi dhulkayagii bay nagula noolaadeen warqadahayagii baa siino adduunka meel walba saasay u marayeen amnigeen aan haysanina wayna la wadaageen khayraadkaadna siisana wayna la yeesheen tacliintii aad noo furtayna ilmahooga waan u barnay dhakhtaradii aqoontaadna siisayna bilaash bay nagula simeen oo nicmadda adduunka waxba ka siinay iyaka laakiin nicmadii weynada islaamka ee siisay iyaku waxba noogama siin maxaa ku baxayna hadda sayidadaan maxaad oran doontaa bal sheeg nicmadii islaamka ee weynay ee naar maanta lagaga waan arkaynay iyakoo tukanaya ma dhibayn annaku ma dhibayn waan eegaynay waxaan idhi qof walba diintiisa xor buu yahay baan nidhi laakiin noomay bandhigin oo noomay sheegin namay barin diintoodii bal maxaan ku baxayna hadday su'aasha qiyaamaha dhacdo fawalaalayaal niyadda dalkan aad ku timaadeen horta bedela insha Allah dhacda warayaal niyadda waan bedelo waan ka toobad keenay dhacda niyaddaas waxaan dalkan u joogaynaa inaan diinteena islaamka ku camirno alxamdulillah ilaahay baan ugu mahadinaynaa dadkeena af Soomaaliga ku hadla qaaradan intan wadan hadda aan maraynay dadka ugu fiican ee masaajida camiraya masaajida ijaaranaya ee gabdhahoogi asturan yihiin diin danaynaya waa dadkeena luqada af Soomaaliga ku hadla ummado badan bay naga soo horeeyo muslima way doorsoomeen qaar bay naga dambeeyay dharkayba dhigteen ma kuwa naga dambeeyay naka arab inaga dambeysay oo 10 sano ku dhawaad wadanka soo gashay dharkayba dhigteen bayo walaakiin bifadlillahi azza wa jalla إنكم ولي واسحيستانو مساجد بعد هيستان أو خير كي بعد كحول انتهين أو قبله إني بقولي أسطوريين لكن واحد نبتو كتاج انتهي ما هرجيني وأولي ذا ودك كوي مدة وأنا شكور لا تي يكون ده لدونان إنكم أنت تكون هيستان دينته ولي دينته اللي نجسي أورنا الإسلام لماذا وحويان ولا بس شيء ودك كات كسر جدار بقول كي بقول إسلام خير يا دعوة يا علمي يا علماء أي جوكتو خير كالصعدو إياه ما شاتكتان بينك ما تعلماء إلا صعدها أمر كابين يا أبابو ليس مركا خير كا هيسان يا نيقو إيماني إن الخير كوسي درتان إن شاء الله ده هذا ودي لا حيدرتي أوب بحضان ودعوة باك صعد عالم كمان حددا ما بين حالي مركز كان جوجني جماعة فلسطين بعد جوكت جماعات مريكانات جوكت جماعات إنجليز كاتي مدي بعد جوكت جماعة صعود عالم عربي عجب الله صعدا وردت يا إلهي درتي أصعدا قاربا دكتوراه قاربا إنجنيراه قاربا ملايين لعقله قاربا دليراه قاربا أضيالا قاربا رتايرو أدويدي كسور رترتي قاربا دليرو نرش عدو بلابنته إلهي درتي بحسن لكن درين باكون رش درين باوضع أرجع ماركو حن إلهي فيلم بصامر كوسود دقني دغدغاقو ما حمين وفعنا السورة باني مني dhalinyartu aad bay u dadaalayeen Norway baa tagnay dhalinyaro iyo culimo way saysteeno khayr baa ka muuqda iyakana laakiin runtii waad ugu liidataan oran maayo waad fiican tihiin inaad dadaalka kordhisaan ma doonaynaa inaad dadaalka aad kordhisaano waan anaguna safarka waan ugu soo khatimnay inaka imika Jarmanu ma noo dhimano 3 magaalo aan mari doonaa bisha 30keeda noo qoran wadanka ina ka noqono hadii alla yiraahdo anagoo nabad qabnaa insha Allah dhahada